طمانية لما سنة جرتا سومالي محا كامسنت سومالي إني قالي هنا كامسنت ما شاء الله أنا يا عروتي اسكو عقيدة أنهاي اسكو دين بأنهاي اسكو فهم بأنهاي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الأمانتين ملو بوجوكتان سودو هذا وقت كستيقين تهي برقاء ظهر يفيد انتو وناكسن انت اسكدب وحنا كان كوهيا مقال كاسي أورنانتي آدو عجيب بدن وانتي مقال نركي on islaha mid walba mid kaniba kugu yaabka badnaa kasi yaab badan oo kasi daran weli ma arkin qof ku tilmaamaya Soomaali oo idil inaysan ahayn muslimiin weli ma arkin ilaa hadda hadii uusan Soomaali ahayn hadii uu Soomaali yahay labadaba midna ma arkin qof Soomaali ku tilmaamaya inaysan ahayn dad muslimiin ah laakiin maanta waxaan haynaa qof Soomaali ah kula jinsiya kula dhaqan ah kula af ah kula luqad ah oo haddana ku tilmaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay yihiin dad غير مسلم يعني dad aan muslimiin ahayn حسبنا الله سيدتهم بفر قوينك ويفرق بديهين الله سبحانه وتعالى ينبي سنة وإناصي شيئا إن آخر الزمان كيصابح دونان في رقوينك للدول دين الإسلام والشيغانية حدنا سيسا حمارك أنا نهي سنة بالمقال في إنتانا كل ديرانين عن هل مرسلة داوانو مقال كليار قاوان الحمد لله عقيدة أنه حبيني مالين بإذن الله هرتاجن هيدت كي يجوا وين عروت كذا أنا لا آمن سن أديو من سنة شرته من سنة شرته سيارة سنة شرته هي الصومالي محكى آمن سنته الصومالي محكى آمن الصومالي ده جارك آمن سنته ما شاء الله سيارة سنة الواجرته هي دي محكى الصومالي كآمن سنته محكى آمن سنته يا شايف كرو هذا الحين جارك آمن سنته من سنة شرته سيارة سنة شرته ما شاء الله الصومالي ده جارك آمن سنته هي هذه ما سنة جرتا طمانية لما سنة جرتا سومالي محا كامسنت سومالي إني قالي هنا كامسنت ما شاء الله أنا يا عروتي اسكو عقيدة أنهاي اسكو دين بأنهاي اسكو فهم بأنهاي الحمد لله. سبحان الله المير يرو مال اسكو كاني دبيتو فكر خلدان يا عقيدة خلدان بوكالا دعي كدب نوع ودادك اللو داقيا إن أساقي يا عروت وي اسكو دين اسكو دقيهين Soomaalida oo idilna ay ka aaminsan yihiin dad gaala ah subhanallah hasbunallahu wa ni'mal wakiil na'udhu billahi min dhalik hore ayaa waxa idinkugu sheegay in caruurta iyo dadka yaryar ee wax magaratada ah laga dhaadhicin karo lana bedeli karo diintooda iska badaayay in ay jiraan dad fara badan oo luqluqi ay qaab khaldan diinta muslimka rabo inay u bedelaan oo tagyiir ugu sameeyaan laakiin Allah subhanahu wa ta'ala waxa soo hor istaagay oo diintiisa asaga ayaa difaacanay inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun oo ku qanacsan yahay in uusan muslim ahayn oo ku qanacsan yahay in dadka muslimiinta ee Soomaalida dhamaantood uu ku tilmaamay dad gaala ah in qof aad gaalaysiisid wax caadi ma aha waa wax aad u culus haddii aad qofkani ku tilmaantay inuusan muslim ahayn waa arin maaragtay culeyskeeda iska leh qofkana qalbigiisa qof ogsoon ma laha mar walbana Allah subhanahu wa ta'ala ayaa qalbigiisa daalacanayo oo waatii xadiidkii uu ahaa in Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum wax sahlan ma inaad maanta meel la soo istaagtid oo tiraahid Soomaalida muslimiin ma ahan caqiidadan aan haysanana waa caqiido fiican caqiidadan waa caqiido wanaagsan dadka muslimiinta ah dhamaantood adduunka dhan laga garanayay inay dad muslimiin yihiin aan ku tilmaantay inaysan muslimiin ahayn subhanallah firqooyinku way iska fara badan yihiin dadka diinta ku qaraabtan way iska fara badan yihiin waxaad ogsoon tihiin inay jiraan niman la yiraahdo takfiir oo takfiir lagu magacaabo oo inta badan gaalaysiiyo dadka muslimiinta waliba Soomaalida inta badan ay gaalaysiiyaan oo marka qaar markaa wareysatidna wax sax ah oo hadda aad ku raacday arkeenin oo waxyaabo Soomaali ay kaga sheekeynayaan laakiin dad aan iyaga ahayn inay muslim ahayn aaminsan dadka haddii aysan iyaga raacin waxay aaminsan inay muslim ahayn xoolaha iyaga qasho cid kale xoolaha u qasho oo muslim ma cunaan masaajid gooni leeyihiin masaajidkaasi ku tukadaan kaligood waay cid ugu tagta malahan dadkan arkayso dhan waxay ka aaminsan yihiin dad gaala
oo aanan muslim ahayn xitaa haddii awoodi lahaayeen dhammaantood qodhay ka wada jar lahaayeen marka nimankaas takfiirka la yidhaahdo weeyaan nimanka hadda muuqaalkan ama codkan aad arkaysaan muuqaal maahan laakiin waa cod aad u jeedaan meesha ay joogaan sida aan maqlay ama sida meesha ku qoran waxa weeyaan qardho meesha la yidhaahdo koley dee ciddi garanaysa aan ma garanayo qardho waan garanaya inay jirto laakiin weligii ma arkin dadka deganna ma garanayo that's why dadka halkaasi degan dad iyagan halkaas degana waxa weeyaan takfiir ah dee takfiir markaan leeyahay cid walba ay garan kartaa waxa laga yaabaa in magaalo walba qof walba jooga hal iyo laba iyaga kamida laga helo laakiin runta markii laga hadlo waa dad aad u xagjirsan yani dad aad u xagjirsan oo diinta islaamka tooda maahan intu kala aanay saxnayn dadkan muslimiinta arkiisa dhan hadalka waa maqlaysaa dadaan u dhahay aniga iyo carruurta isku caqiida nahay isku mabda iyo isku fikir baan nahay waxaan aaminsanahay Soomaalida dhammaanteed inay gaal yihiin subxaanallah taasi waxa weeyaan wax qeyro caadi ah inaad qof muslima ku tilmaantid inuu gaal yahay waa khatarteeda leedahay waad arkaysaa diinta muslimka inta badan in lagu qaraato dad muslimiin ah Soomaali ah oo fara badan oo waxay jiro qaab khaldan dadkii inay diinta uga dhaadhiciyaan rabo si ay u nacsiiyaan dadkaasina waa dad gaala ay daba ka riixayso oo la rabo diinta muslimka in lagu khafiifiyo ama lagu yareeyo laakiin ilaahi subxaana watacaala uu ku hor istaagay innaa naxnu nazzalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun oo wax cabsi ugama qabno maanta oo diinta muslimka meel walba ay gaartay la aqoonsan yahay billions ay haystaan in aysan cidina waxba ka qaadeen qof iyo laba midna hadda ka hor oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam diintan ay ku cusbay dadkan oo maartay dacwada ay kow ahayd bilaabanaysa baa laga guuleysan waayay ilaa heerka la soo gaarsiiyay waxaan ku faraxsanahay mar walba diinta muslimka inay meel fog sii gaarayso that's why nin kasta oo u gafo nin kasta dadka muslimiinta u gafo taasi waa xisaab asaga iyo Allah subhanahu wa ta'ala ka dhaxayso anaga si kasta oo dadka muslimiinta u gafo oo hadal qadaf oo imaado ama caqiidiye iyo mabda'iyan oo aaminsanaado saasi ta kuma tilmaameen inuu maartay muslim ahayn Allah subhanahu wa ta'ala ayaa kula xisaabtamaa laakiin waxa ogaataan in nimankaasi ay rabaan in ay dadka muslimiinta Soomaalida diinta in yar uga saaraan oo ay ka dhaadhiciyaan in aysan muslim ahayn waxaad arkaysaa nin iyo xaaskiisa intay u yimaadaan ee dulmiyaan ee xaaska wax ku aqriyaan ay yiraahdaan qofkani muslim ma aha ninkan ay wada joogtaan ilmaha ka soo kaxayso ugumaba xirmo noo imo ay sidaas ku guursadaan wax dhacay oo saxa oo dhacday oo la arkay waa inay qofka ay ka dhaadhiciyaan nin dhan oo xaaskiisii yasaga ay wada joogaan intay la hadla ay yiraahdaan muslim diinta islaamka ma haystaan hooyada gaalo weeye abaha waa gaal carruurtaada maaragtay wixii qaangaare waa gaalo adiga marka waa inaad ka soo baxdid oo diinta islaamka oo saxda waa diintanada aad ku soo biirtid oo islaamtaani carruurteedana aad bari ka noqotid sidaa darteed annaga markaad nagu soo biirto waxaan ku siinaynaa way ku leeyihiin islaamka naag dhan oo uu nin qabo oo meel degan inta la soo dulmiya ayaa nin kale iska guursanaya that's why waxaa laga dhaadhicinaya in uusan ninkaasi muslim ahayn subxaanallah waa arrin khatarteeda iskale in qof muslima aad ku tilmaantay inuusan muslim ahayn sidoo kale qisooyinka ay sameeyaan waxaa ka mid ah in maaragtay dad aad u ganacsado oo u shaqo badan inay yihiin in maaragtay ay bulshada ku dhex firaaraan ay ku dhex faafaan oo waxyaabahaas iyo caqiidadaas khaldan ay aaminsan yihiin dadka in yar yar oga dhaadhiciyaan markastana ogsoonaada meeshay ka bilaabaan waa xagge waa ilmaha iyo haweenka markasto meeshay ka bilaabaan waa ilmaha iyo haweenka family dhan oo dhisan ayaa loo imaanaya maamada la tashkiilinaya waxyaabo kale laga dhaadhicinaya diintaana saxe tan waa khalad inta waa saan kadibna qofkii waxaa arkaysaa isagoo raacay oo leh ninkayga iguma xirno waa gaal anigana muslim baan ah nacuudu billahi min dalik intaana muslimiina masaajidda ku tukanayso آمنسان الله سبحانه وتعالى دفاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيديسو صوميسو صلاةيسو حجينيسو مياد كتل ما مكرتا إني مسلم أهين نعوذ بالله من ذلك تاس خطرت ذيلا لهي دكتوني لأقوم همسان أرميني كدكتونا لأنه حيتاي إن قفكي آلن معناها أقوم بدن دين تأصيل حين وسنكو كتسو من التوح لهنا اللي عملوه كفر مركز تنسكو داي ميلي جوغان إناد كديراتي وحنا آلن كدقي سنين مركو caruurta iyo haweenka siiba waa meesha ugu badan ay dadka ka soo galaan kana taabtaan waana in aan iska difaacno
يعني dagaal iyadoo jirin in adiga mabdaiyan diintaada aaminsan tahay marnaba aan laga saarin oo firqo khaldan oo laga fara badan yahay oo si khaldan diinta u haysato qof walbana gaal waa iska dhayso inaad raacin magaalada ma tusaale ahaan intaas qof muslima ganacsato xoolay qashan hilib bay ka ganacsadaan waa dad muslimiina masaajidday kugula tukadaan laga yaabo inaad garanaysid ay laga waxay aaminsan yihiin inaysan muslimiin ahayn that's why hilibka iyo xoolaha ay qaleen ma cunayaan waa in iyaga ay qalaan keliya midkii cunayaan that's why waa arrin khatarteeda iskale halisteedana iskale markastana aan ka digtoonaano waana u jeedaan qofkani wuxuu ka hadlayo carruurta yarka sida uga dhaadhiciyey ayay rabaan dhammaan dadka kalena ay uga dhaadhiciyaan marka mar walba waxaa rabnaa inaan ka digtoonaano oon iska celino dad kasto ama qof kasta oo isku daya in meelahaasoo kale dadka uu ka soo galaan waan raadina waanan soo saara insha allah waanan idinla wadaaga waanigu maxamed khadar wassalaamu calaykum